daawadayaal saacadu waa abaaro toodii iyo barkii habeenimo ama 7 saac iyo bar habeenimo caawa halkan waxaa ka socda dhafar lagu xusayo Allah u naxariistay caalimkii weynaa Xaaji Muxudiin Raage Xaayow oo kamid ah mashaa'iqda ugu caansan ee gudaha dalka Soomaaliya علماء aad u fara badan ayaa ka aflaxday Allah u naxariistay Xaaji Muxudiin waxaana kamid ahaa culummadan sidaan hore idinku soo xusnay kalabta Banaabixi Sheekh Muuse Marcade Sheekh Nuur Cumar Absuge iyo Sheekh Muuse Cadde نسألك الأمانة بجاه أبي القاسم العدناني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين halkan waxaa ku sugan mashaa'iq aad u waaweyn oo kamid ah tilmiidii Xaaji Muxudiin waxay ka hadleen Allah u naxariistay taariikh nololeedkii Xaaji Muxudiin ayuha al-ikhwatu al-kiram aaway halkan waxaynu iskugu nimidhay ziyaaradii caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Xaaji Muxudiin Raage Xaayow oo ah caalim weyn oo diinta islaamka nasriyay waxaan oo dalaba ahna ay ka soo jeedaan faraciisii iyo mashaaikhdii oo wax soo baray shaykhaas tadkiradiisii iyo xasuustiisii iyo ziyaaradiisii ayaynu caawa iskugu nimiday runtii shaykha wuxuu ahay halgamaa weyn oo diinta islaamka u soo khidmeeyay dalaba fara badanna diinta islaamka baray ayna ka farcameen jiilal fara badan oo kulligood u khidmeeyaan diinta islaamka sheekha ziyaartiisu caawa kow ma ahinin waxay soo socotay muddo 22 sano ka badan wuxuu ahay runtii caalim laga aflaxay oo ah muxyidiin magaciisu sida uu u yeelayo diinta islaamka nooleeyay anigu waan la soo zamantamay oo sheekha waan soo gaaray wuxuu ahay dadka muttaqiinta ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala cibaadadiisa iyo taqwadiisa u go'toomeen ayuu ahaa mar hadda ka hor aan safar ku jirnay 8 saac habeenimo ayuuna toosiyay markaasuu wuxuu nagu yiri xilligan oo kaleetood miyaa qof ilaahay dan kalihi hurdaa ككع أو إلهي عابد سبحانه وتعالى شأنه سمرك السدا سوها وحن أتاجنا عاوة شيخين جليل كهاي كرامة بناي علم بناي عمل كبناي شيخين حاج محدير رئيس الرئيس أتاجنا عاوة شيخ وحوهاي كان كثير الاستقامة على دين الله وهو الشيخ متوسنا تسع بدنت دينت الوتوسناده وكان كثير التهجد في صلاة الليل وهو الشيخ تهجد في اسمه بنا صلاة الليل وتهجده وكان مربيا ناجحا في تربيته شيخ وهو مربي كقول ليس تربية كقول ليس هو الشيخ هذا كر وحول شغل وشيكي وحول لسان كيسي وناقب الناي ولي إما صامرين habeen 9 saac aanad dhamaysan
صلاة الليل كأذكرت أنا مسامر الوري وحور الشيخ سجاد ساعة بين مسامر ولي أنا صلاة الليل كأذكرت أنا مسامر الشيخ بلد بادي أنتوا كسرناي وحاجه وحاوى دبعديسه waxaa kamid ahaa khayr Allah siiye dar haduu joogo xalqadan oo kale haduu joogo ninka daakirka ah hal kalimad oo naxwa hadii uu qaldo xaajigu inta waxa uu sheegi jiray si ixtiraam iyo xushmad leh ayuu ugu sheegi jiray wuxuu ahaa xaajigu agtiisa laxni lagu sheegi karin hadii lagu sheegana asoon dadkana ku fallaaxin ayuu si astur iyo qiimo leh ayuu ugu sheegi jiray waana laga hadla xaajiga wuxuu ahaay iyo dadka ka soo baxay sheekh saacade isku darsinayeen iyo sheekh Abuukar Macallin waxa kamid ahaay waxaana soo gaartay anaga talaamiidiisa nahay sheekh Nuur sheekhayna ayaan talaamiidiisa nahay waxaana loo sheegi jiray sheekha noo sheegi jiray hadii xaajiga iyo sheekh saacade darsi loo akhriyahay xaajigu qof hurda oo kale u ahaay hadii oo casharka dhamaado lagu naqi tagana wixii iskaal galaasaa la dhihi jiray sheeg markii Ilaahay wuxuu siiyay basiiro iyo fahmad dheeriya ayuu qabay oo dadka qaarkiis ayna la qabin waxaan joognaa sheekheeni weynay ee caalimka ahay sheekh Muxudiin Raagaxay ziyartiisi sheekhu waxa la dhigi karaa wuxuu kamid yahay dadka la yiraahdo waa qaniyun aan taariif oo taariif iyo in la taariifiyo aan u baahnayn waxaa sharaf ugu filan sheekhu halahan aad u jeedin iyo intoo kale ee caalamka gudihiisa iyo dibadiisa jira in markaas ay ka aflaxeen intaas ayaa sheekhu sharaf ugu filan sheekhu waxa uu ahay murabbil atfal sheekh markaas culumta diiniga dadka ku barbaariya kadalika dariiqadana dadka ku barbaariya intaana caawa taagan iyo intoo kale ka maqan waa markaas inay asaga u nisba sheegtaan oo ardayda asaga uu tarbiyay ay ka aflaxeen ardayda asaga ka aflaxday ay markaas gacantooda ku hayaan ay tarbiyeeyaan ayaa sheekhu sharaf ugu filan waxaan leenahay insha Allah sheekhu xageena khayr badan Allah uga jaaziyo waa simartiisi adduunyada waxa uu ku sameystay simartoodii ayuu markaas guraha insha Allah intaan intoo ka badan ayaa leeyahay nahaaran wixii markaas turaatha uu ka tagay markaas adduunyada ku faafiyaan marka intaas sharaf ugu filan anagana waxaan leenahay sheekhu xageena khayr badan Allah uga jaaziyo سادام عبد الله سياد شبكة المتحابون في الله مقالة مقدشو تعالى في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال قال الله تعالى رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر ولعه ومن أكثر ذكر الله أحبه الله صل وسلم عليه.